subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn. dawladda Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo celinaysa dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyo ku yaala waddanka Liibiya. ku dhawaad 20 qof oo ku sumoobay cunto ay cuneen oo la dhigay qaar ka mid isbitaalada magaalada Muqdisho. Amisom oo ka digtay in ay mar kale weeraro ku qaadaan ciidamada Amisom ee ku sugan Soomaaliya dagaalamayaasha Al-Shabaab. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo sheegay in ay weli taagan tahay awoodda Al-Shabaab ee Soomaaliya. ciidamada ammaanka Soomaaliya oo xalay howlgallo baaritaanada ka sameeyay xaafado ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. iyo Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay dilka nin ay walaalo ahaayeen hogaamiyaha waddankaasi. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. waa 7 bisha Maaj sanadka 2018 warkaas oo dhan waxa la diyaaray Xasan Maxamed Awis. waad mahadsantahay Xuseen Cabdulla bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadaas oo faahfaahsan. dawladda Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celinaysa dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyada ku yaala dalka Liibiya. Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya. waxaa maanta lagu wadaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya la keeno magaalada caasimadda ee Muqdisho. tirahan dhalinyaradan ayaa waxay gaarayaan 13 ruux kuwaas oo laga soo daayay xabsiyada ku yaala waddanka Liibiya. wajiga labaad ay noqonayaan dhalinyaradan maanta la keenayo magaalada Muqdisho oo ku dhibaataysanaa xabsiyada waddanka Liibiya. marka hore qaab tahriibana ayaa waxay ku gaareen Liibiya walow markii dambe ay la kulmeen tacadiyo ka dhan ah gabadfallo iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan oo loo geysanayay. mar haddii ay soo gaaraan magaalada Muqdisho maxaabiistan laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya ayaa waxay noqonayaan wajigii 7aad oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsiyada caalamka Muqdisho lagu soo celiyo. wadamada maxaabiista Soomaaliyeed ee ka keentay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay kala yihiin Liibiya oo 2 jeer ah oo ay maanta tan u noqonayso, Ethiopia oo 2 jeer ah, Hindiya oo 2 jeer ah iyo Seychelles oo mar qura ah. kaalintan lagu soo daayay maxaabiista Soomaaliyeed ayaa waxaa inta badan door muhiim ah ka qaatay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaase jira in xilligan dhalinyaro fara badan ay ku dhibaataysan yihiin dalalka qaarkood iyadoona ay sheegayaan in dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayaan. ku dhawaad 20 ruux oo ayaa ku sumoobay cunto ay cuneen kuwaasi oo la dhigay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa haya faahfaahinta warkan. warar aan ka helnay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay sumoobeen dad ku dhaw 20 ruux oo cunay kalluun sida ay noo xaqiijiyeen ehelada dadka qaar ay sumoobay. dadkan isbitaalka la dhigay ayaa la sheegay in xaaladooda aad u daran tahay iyadoona iminka lagu howlan yahay sidii loo baxnaanin lahaa isla markaana sunta jirkooda gashay looga sifin lahaa. dadka sumoobay ayaa waxaa ku jira qoys ka kooban 5 ruux oo kala ah hooyo iyo 4 gabdhood oo ay dhashay sida goobjoogyaal la hadlay idaacaddan kulmiye ay u xaqiijiyeen. kalluunka sumaysan ayaa lagu sheegay in laga soo iibiyay mid ka mid ah suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho deedna ay cuneen kaasi oo markii dambe dadkan lagu sheegay inay ku xanuunsadeen isbitaalada Muqdisho qaar ka mid ah la dhigay. dhaqaatiirta isbitaalka Jasiira oo la hadlay idaacaddan kulmiye ayaa sheegay in 5 ka mid ah dadka ku sumoobay kalluunka loo keenay iyaga balse saacadaha soo socda ay hadli doonaan. qaar ka mid ah ehelada dadka sumoobay oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay qaar ka mid ah ehelada dadka sumoobay oo aan la xiriiray ayaa inoo suurtagelin inaan ku helno khadka teleefonkii marka hore aan ku wacnay. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in wali ay taagan tahay awoodda dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee Soomaaliya sida warkan uu ku hayo wariyaheena Maxamed Cabdisalaan Cumar. guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa su'aalo weydiiyay taliska Africom ee Mareykanka u qaabilsan howlgalka qaaradda Afrika. taliyaha ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom General Thomas ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada ugu jawaabay su'aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka Afrika ay ka wadaan qaar ka mid ah qaaraddan Afrika. taliyaha ayaa si gaar ah wax loogu weydiiyay howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya wuxuuna sheegay in howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya uu ka mid yahay dadaallo caalami ah oo lagu caawinayo dawladda federaalka ee Soomaaliya.
jenaraal thomas ayaa soo hadal qaaday intii su-aalaha la weydiinayay duqeymaha ay ka fuliyeen gobollada jubbooyinkii shabeellada hoose iyo weliba dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab wuxuuna sheegay in duqeymihii ay ka fuliyeen gobolladaas ay dhammaan ay la bartilmaameysadeen xubno sarsare iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wuxuuna sidoo kale uu ku nuunuuxsaday in weli ay taagan tahay awoodda dagaalamayaasha al-shabaab wuxuuna tusaale u soo qaatay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen isgoyska soobe ee dhacay sanadkii hore ee 2017 ka ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo ruux iyo qaraxyo kale oo ka dambeeyay oo ka dhacay magaalada muqdisho taliyaha ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom Jenaraal Thomas ayaa dhanka kale tilmaamay in weli ay wadaan ama ay sii kordhin doonaan duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya wuxuuna sheegay in duqeymahaas ay ku taageerayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna sidoo kale uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka caawin doonaan inay dhisato ciidamo gaar ah oo suga ammaanka gobollada dalka Soomaaliya taliska Africom ee Mareykanka u qaabilsan howlgalka qaaradda Afrika ayaa kordhiyay sanadkii tagay sanadkan duqeymaha ay ka fuliyaan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa xalay howlgallo baaritaan ka sameeyay xaafadaha ku yaal degmada Hodan kadib dil ka dhacay degmadaasi Maxamed Bootaan Yuusuf ayaa haya faahfaahinta warkan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa xalay howlgallo waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir howlgalkaasi ayaa ciidamada waxay ku soo qabqabteen dhalinyaro badan oo ciidamada ay ka soo aruuriyeen guryaha iyo wadooyinka ciidamada ayaa howlgallada waxay si gaar ah ugu sameeyeen xaafada Siigaale ilaa Soonakee ee degmada Hodan waxaana dadka deegaanka qaarkood ay KNN u sheegeen in ciidamadu ay baaritaano ku sameeyeen guryaha halka wadooyinka ay dadka ay ka qabqabanayeen ciidamada sidoo kale ciidamada ayaa dadka ay qabteen iskugu geenayay meel gaar ah si ay baaritaano ugu sameeyaan howlgalkaani ayaa xalay ciidamada dawladda ay ka sameeyeen xaafadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilib degmadaasi shalay lagu dilay mid kamid ah gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmadaasi inta badan dilka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa sheegtay ururka al-shabaab iyadoona ay xusid mudan tahay in maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ammaanka howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ku soo qabteen dhowr dhalinyaro oo ay la xiriirinayaan inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab weerarada al-shabaab ay ku qaadayaan ciidamada midooda Afrika iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka sii dari kara iyadoo ciidamadu ay isku dayayaan in ay dib ay u furaan wadooyinka muhiimka ah oo hadda al-shabaab u go'an sida uu sheegay afhayeenka howlgalka AMISOM gaashaanla dhexe Wilson Runo ayaa sheegay in AMISOM iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay isku dayayaan inay furaan wadooyinka xiriiriya caasimadda Muqdisho ilaa iyo magaalada Baydhabo oo dhir ahaan ay dhan tahay 240 kilomitir afhayeenka AMISOM ayaa sidoo kale sheegay in al-shabaab oo magaalada Muqdisho laga saaray 2011 ay xilligan ay luminayaan deegaano badan sida hadalku uu dhigay Runo ayaa shaaca ka qaaday jimcihii la soo dhaafay al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada AMISOM oo ku sugnaa magaalada Balcad iyo duleedkeedii ay sidoo kale ciidamadu ka hortageen weerar kale oo ka dhacay deegaanka Faafaaxdhuun ee gobolka Gadow cashar ayaan ka baranay dhacdada laakiin dagaalka noocan oo kala oo al-shabaab ay adeegsanayaan waa uu dhici doonaa ayuu yiri Wilson Runo waqtiga ciidamadu ay doonayaan inay furaan wadooyinka xiran iyo marka ay u safrayaan deegaano kale oo fog waxay halis u yihiin weeraro dhabagal ah oo al-shabaab uga yimaada ayuu sidoo kale sii raaciyay afhayeenka AMISOM uu warkiisa warka subax ayaad weli kala socotaan radio kulmiye wararkii dibadda ayaad goordhow maqli doontaan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono nin ay walaalo ay hayeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu dilay dalka Malaysia waxaana dilkiisa loo adeegsaday kiimiko waxaana la sheegay in amarkaasi ay lahayd dowladda Kuuriyada Waqooyi sida Mareykanku ay ku sheegeen gabagabada baaritaan ay sameeyeen Kim Jong Nam ayaa dhintay kadib markii laba dumar ah ay wajiga u mariyeen sun halis ah oo VX magaceeda la yiraahdo xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee dalka Malaysia Mareykanku waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi uu ku soo rogayo cunaqabateyn taas oo jawaab u ah isticmaalka sunta halista ah Mareykanka ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi dilka Kim Jong Nam laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa inkirtay in ay ku lug lahayd arrintaasi
ugu dambeyntiina waddanka Sri Lanka oo lagu soo rogay xaalad degdeg ah ayaa lagu soo waramayaa in weli ay ka taagan yihiin rabshadihii horseeday xaaladda degdega ah. isku dhacyo u dhexeeya muslimiinta iyo boolistaha dalkaasi ayaa lasoo warinayaa, waxaana la tilmaamay in dowladda ay ciidamo ay u dirtay magaalooyin dhaca bartamaha dalkaasi Sri Lanka oo hadda ay isku dhacyadu ay ka taagan yihiin. mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in xaalad degdeg ah ee dalka la geliyey looga gol leeyahay in amniga lagu sugo. dhegeystayaal warkiisa waxa iga intaa, cidda uu seego warkan waxay dib uga daalacan kartaa pageka internetka aynu ku leenahay ee ah radio kulmiye.com.